بسم الله الرحمن الرحيم soo dhawaada saaxiibayaal kusoo dhawaada macadka xornimo dhaqaale maanta halkan waxaan idinku soo duubayaa ilaa 6 lacagood 5 lacagood 1 2 3 4 5 lacagood oo aan rajeynayo isbuuca kan inay dhaqaaq wanaagsan yeelan doonaan ugu yaraana 5 lacagood 3 ilaa 2 lacagood ay dhaqaaq fiican samayn doonaan 50 bib ilaa 100 bib aad ka qaban doontaan lacagta ugu yar waana garan karnaa lacagaha idin sheegayo dhaqaaqa idin sheegayo dhaqaalaha laga samayn karo soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad saaxiibayaal waa maalin isniin ah bishu tahay bishii saddexaad 29keedii waxaan xaggan ku bilaabayaa lacagta ugu horeysa oo ka mid ah lacagihii aan isbuuca falanqiimaha ku soo sameynay isbuucii hore iyo isbuuca kanba NZD card mar walaalii markaa fiiriso one day-ga sida caadada ahayd waa lacag ku jihaysan guud ahaanteed double top-ka iyo ascending channel-ka kan ay sameynayso markaa qiimaysid lacag gebigoodaba waxa weeye ku jihaysan jihada sell ku jihaysan weeye mar walaalii markaan fiirino higher time frame-ka inuu jihaysan yahay jihada suuqa waxaan mar walba fursadda aan ka raadinayno waa maxay waa lower time frame-ka lacagtu jihaday sii aadi doonto lower time frame-ka sida noo muuqato walaalayaal waxay sameynaysaa si aad u qurux badan waxay u sameynaysaa dhaqaaq iyo correction mar walba oo suuqu dhaqaaq sameeyo wuxuu sameeyaa correctiono kala nooca buu sameeyaa correctionka hadda kuu muuqda midkii largiga ahaayo aad taqaaneen iyo midkii wuxuu sameeyaa aadka u yaryaraa oo correctionka yararkaa sameyn jiray mid walba marka waxaa jira qaabab looga faa'iidaysta baa jira hadda kan idiin muuqda oo kale markaa qiimaysi waxaa laga faa'iidaystaa ugu yaraan ilaa meesha uu joogo ugu badnaanna waxaa laga faa'iidaystaa meesha tan markuu sii jabsado inaad ka raadisay correction labaad oo aad sii haysatay ilaa halkaa NZD-kaad walaalayaal waxay ka mid tahay lacagaha aad fursadaha ka fiirsan doontaan qaabkaad u geli doontaanna waxa weeye isla hadda waxay sameynaysaa entry wanaagsan bay sameynaysaa oo aad dhaqaale ka samayn kadib waxay soo samaysay rejection bay soo samaysay candle-ka kan baa marka fiirsanaysa hadda soo dhacay candle-ka hadda soo dhacay fiirsanaysa haddii candle-ka kan saacad kadib uu ku xirmo strong uu ku xirmo waxaan u aqoonsanahay NZD card inay soo dhaqaaqi doonto oo ay soo samayn doonto ugu yaraan 70 bib aad kaga faa'iidaysan doontaan haddii ilaahay idmo lacagta tan aad bay u qurxoon tahay walaalayaal sidoo kale maadaama ay sameynayso correction aad u dheer maxaan ka wadaa lacagtu haddii correctionada kor u jeeda ay noqdaan correction aad u laalaabanaya ay noqdaan mar walba intriga ugu sii wanaagsan oo laga qaato waxa weeye waa inay dhaqaaqi ay soo samayso ay correction ku dartaa haddii kale celceliskan baa ku sii celinaya marka lacagtan totally ba lacagta waxay ka raadin doontaan walaalayaal sell baa ka raadin doontaan waa lacag aad u qurxoon intri fiican bayna leedahay waa inaad ka faa'iidaysataan insha Allah haddii ilaahay idmo shuruuduhu waxa weeye in candle-ka rejection-ka ah candle body-la uu soo doomaro weeye maadaama lacagtu ay correction aad u laalaabanaya ay ku jirto NZD-ka higher time frame iyo lower time frame inay isku jiha noqdaan baan u rajeynaynaa oo aan isku jiha uga faa'iidaysano haddii aan ku soo darsanno lacagta la yiraahdo GBP card mar walaalay markaan fiirino one day-ga xaaladda ay kaga jirto waxay kaga jirtaa qaabka kan bay ka samaynaysaa walaalayaal baatanka kan noocaan ah jihadiisi baa u tiradgaranaynaa baatanka kan correction-ka ah bay soo samaysay waxaan rajeynaynaa dhaqaaq bay soo samaysay dhaqaaqa kan ay soo samaysay marka aan u tagno 4 hour-ka wuxuu sameynayaa wax aad u cajiib uu sameynayaa walaalayaal wuxuu sameynayaa waa maxay waxa weeye lacagta tani inay halkaa tagto qaabka correction-ka ay samayso halkaa kandhaladii aan confirmation ku qaadan jirnay oo dhaqaalaha lacagaha kaga samayn jirnay aad si xooggan uga daawataan ayada laftirkeeda walaalayaal halkaas bountiga baa sugaysaan qaabka ku tagto kandhalada ay samayso insha Allah iyadana isha ku haynaysaan GBP card waa lacag aad u wanaagsan lacagaha kale oo isbuuca kan aan xoogga saarayno waxa ka mid ah Euro NZD waxa jira bountiyo aad u qurxoon oo aad dhaqaale kaga samayn kartaan walaalayaal higher time frame-keeda horta markaa fiirino intaana meel kale u gelin waxay sameynaysaa higher time frame-ka ascending-kan weyn bay sameynaysaa halkan inuu correction ka dhex dhici doono bay noo sheegaysaa
marka laabashada yarta oo correctionka dhici doona qaabkan lacag uga samayn lahayn baan fiirinaynaa annaga oo kaga faa'iidaysanayna 1 day-ga 4 hour-ka iyo 1 hour-ka qaababka lacagtu ay noo samayso walaalayaal haddii aad fiirisaan 1 day-ga oo kale walaalayaal lacagta tani waxay samaynaysaa 2 bounty oo aad u fiican bay ka samaynaysaa 4 hour labada bounty waa maxay bounty koowaad waa maxay in lacagta tani correctionka kan ay ku soo laabatay ay high confirmation ay ku qaadatay high confirmation waa maxay in kan dhaliskii xooganaa 4 hour-ka kan dhal xoogan uu ka dhex baxaa waa kow mar walba hadalka aan ku leeyahay waa maxay waa khidadaha aan lacagta kaga samayn karin falanqeymaha aan kuu soo dhigo wey in kan dhal xoogan uu soo dhaco trade line-kan yarkaa uu ka baxo kow in 15 minute-ka marka aad tagti ay lacagtaani kuu samayso correction qurux badan waa maxay correction yar ay kuu samayso haddii 15 minute-ka aad ka heshay correction aad ka heshay lacagtan waxaa haysataa intriga ugu wanaagsanaa lacagta tan oo ilaa aad ku haysan lahayd bountiga aad ku haysan lahayd ugu yaraan bountiga aad ku haysan lahayd okay sidoo kale isla isbuuca kan lacagta tan fursadaha waaweyn ee ku hoos lamaan baatankan yarka oo muuqda waa maxay fursadaha ugu waaweyn waa maxay oo aadka ugu sii waaweyn oo 90% mar walba oo boontiyada culus aad ka sugtaan suuqa kan aan aaminsanahay inaad dhaqaale ka samayn doontaan waa maxay waa in lacagta tani ay samayso wejiga koowaad oo ah inay dhaqaaq samayso kadibna meelahan correction lagu tago haddii bountiga ay tagto lacagta tan ay correction qaabkaasi ku tagto waxaa haysan doonaa dhaqaale aad u badan baa ka haysan doonaa ugu yaraan 400 oo bib bay noo soo dhici doontaa euro AUD sababtoo ka waa maxay waa strong bounty waxayna tegaysaa isbuuca kan gudihiisa inay bountiga tagto baad u rajeynaa haddiise ay dhacdo waa caadada suuqa uu sameeye in lacagta halka ay dhaqaaq ka soo samayso iyo qaabka ka ku soo samayso waa iyadana waa sidoo kale marka labada dhanba kii ay aado iyo haddii ay halkan confirmation and continuation ay 15 minute ka samayso waxay samaysanaysaa totally 3 fursadood mid dhexe iyo mid kore iyo mid hoose oo waxay samaysan doontaa 100% aan isha ku hayn doono labada bounty mar walba oo suuqu boontiyada u dhow ay yihiin strong bounty ay yihiin waa marka ugu fiican oo lacagaha suuqa laga sameeyo waa maxay tirar culus marka suuqa u dhow yihiin aad bay isha ugu hayaa xaaladda suuqa kan ku dambeeyo maadaama lacagta tan isbuucii u dambeeyay ay soo samaysatay correctionka kan ay soo samaysatay dhaqaaq ay samaysay correctionka kusoo daadatay waxaan rajaynaynaa ugu yaraan meeshaas inay ka gaadgaataan insha allah ay dhaqaaqaas samayso iyadana walaalayaal isha ku hay doontaa lacagtaas waa lacagaha khibradda iyo aqoontayda ii sheegayso 100% in isbuuca kan aan lacag ka samayn doono insha allah toddobadii trade aan isbuuca qaadan jirnay bishii hore waxaan filayaa dadkii ila socday groupka aan lacagaha aan soo dhigo lacago badan baa soo dhigay ay ka mid ahayd AUD SSD oo ay ka mid ahayd goldiga oo 2 jeer aan soo dhigay oo ay ka mid ahayd GBP card oo aan soo dhigay oo mid walba aan indhahayay ka faa'iideysta dhaqaalana ka sameeyay aan toos aan ku fiiqay kaliya ma ahayn sawir aan soo dhigay mid walba waxaan soo dhigay inaad haysataan meel shacayiman ay soo sheegay dad badan oo ka faa'iideystay way jiraan marka toddobada trade ma ahan wax maalin walba taagan waa waxaan idin ballan qaaday bisha tan inta ay socoto marka ka soo bilowdaan bishii hore 28keedii iyo bisha tan hadda 29keedii waa bil bay isku tahay marka bishii hore maalmihii ugu horeeyay waa lagu kala baxay dad laakiin waxaaba jira aaminsanba 7 trade in la qaadanba macadka la soo dhigay marka haddaad dib ugu laabataan lacagaha la soo wadaagay dhaqaalaha ka samaysay waxa ogaanaysaa in wixii aad iga baahnaydeen aad iga hesheen insha Allah fursadaha kan hadda aan sugayno strongyadan lacagaha kan labada geesood aan ka sugayno 99% waxaan rajaynaynaa inaan dhaqaale ka samayno haddii Ilaahay idmo idinkuna waa inay isha ku haysaan haddaan midda kaga tago walaalayaal USDC HF waa iyaduna u eg lacag samaynaysa fursad aan lacag kaga samayno USDC HF haddii aad tagtaan walaalayaal 4 hour-ka oo kale haddaad tagtaan waxay soo samaysay waxaad u qurxoon bay soo samaysay waxay samaysay dhaqaaq bay samaysay correction bay samaysay haddana dhaqaaq bay samaysay meeshii waxa ku timid qaab correction iyadoo laftirkeeda meesha tan waxa aad uga ilaashan doontaan confirmations baa uga eegan doontaan haddaad si guud ahaanad u fiiriso lacagta tan patternskan bay ka soo dhex baxday higher patternki waa kan waa midkan weyn
bay ka soo dhex baxday dhaqaaqyadaasi samaysay correction bay samaysay dhaqaaq kale marka waxaan rajaynaynaa iyaduna inay dhaqaaq xoogga sii samayso maadaama lacagta CHF markii aad qiimaysaan walaalayaal ay u eg tahay mid iyaduna hooban doonta oo dhulka sii geli doonta markii aad ku qiimaysid structure ahaan aad u qiimaysid lacagta CHF waa sababta CHF taan hadda u soo qaadanayo waxa weeye lacagta CHF baa daciifsanaan sii sheegi doonta walaalayaal inay sii daadato oo kale marka waxa weeye sababta aan lacagta u soo qaadanayo weeye waa inaad sidaa ula socotaan aad uga faa'iidaystaan marka CHF fursadda ay ku siin karto CHF waxa weeye fursadda CHF ay ku siin doonto qaabka kuu siinayso waxa weeye candleliska hadda socda oo kale inay qaab rejection sameeyaan waa maxay qaab rejection inay sameeyaan maadaama waa maxay ay correction ku soo daadatay sabab qaabka rejection u sameyn kartaa inay meelaha ka rejection ka sameeyaan big chance bay bixinaysaa markaas iyada laftirkeeda walaalayaal waa inaad aad ka faa'iidaysataan oo isha ku haysaan qaabkay noqoto waxyaabo possible baa jira suuqa mar walba aad analyze gareynaysid waa maxay wax boqolkiiba boqol aad rajaynaysid inay aqoontaada ku dhacayaan iyo wax boqolkiiba konton dhici kara baa jira boqolkiiba konton waxa dhici kara waa maxay in lacagta tan double topka kan ay madaxa la dhaaftay ay si xooggan kusoo jabsato kadibna ay correction gasho waa maxay waa 50 weeye waa maxay waa saadaasha 50 ga la yiraahdo weeye kadibna ay sii daadato marka iyadana waa wax meesha ku jira markii aad baratid dabeecadaha suuqa markii aad tusaale ahaan ka soo hadlayna casharka impulsive correction waxaan ku baranaynaa koowaad maxay ahayd waa habka isbedelada suuqa ku sameeyo inaad lacag haysatid iyo inaad lacag ka baxdid waxyaabaha sababta waa maxay lacagta haddii dhaqaaq ku sameynayso waa haysanaysaa laakiin haddii hab corrective ku sii socoto lacaga ku jirtay waa maxay waxaa ku khasbanaysaa inaad iskaga baxdo analysis-kuna waa sidoo kale haddii lacagta tan qaabkan dhaqaaqa ah uu dhaqaaq soo doomaro waxaa ogaanaysaa in xaaladdu isbedeshay oo qaabka isku bedeshaa uga faa'iidaysta marka mar walba waa inaad trickiskan kuu sheegaya adeegsata insha allah lacagaha isbuuca kan walaalayaal aan fiirsanayno lacagahaas bay noqonayaan euro AUD USD CHF GBP card NZD card lacagahaas oo dhan waa noo fiirinaysaan insha allah ishaana ku hayn doontaan hadduu ilaahay idmo khayr badan baan idin rajaynayaa walaalayaal asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh inta aanan ka bixin maadaama lacag NZD ay ku jireen aan falanqeynta ku soo qaadanay lacag NZD ay ku jiraan waa falanqeynta ku soo qaadanay marka sababta falanqeynta ugu soo qaadanaya waa maxay haddaa halkan fiirisaan walaalayaal NZD bayriska sal yar oo macaan inay soo aadaan rajaynayna waa maxay secretka aan u soo qaadanaya waa maxay NZD bayris waa secretka kan walaalayaal mar walba waxaan jeclahay habka aan lacagaha u soo qaadanaya iyo trickiska inaad ila fahantaan hadda fiirisi suuqa kan baatanadaas higher batteriska soo jabsaday marka waxaan rajaynayaa inuu sii socdo suuqa kan lacagta tan ay sii socoto continuation kan sii qaadato baa sugaynaa mar walba oo aan ogaano aqoonta noo sheegaysa in NZD kaligeed ay daciif galayso lacagaha aan ka faa'iidaysanayna waa maxay lacagta tan NZD kaadoo kale sel baa uga faa'iidaysanayna lacagaha NZD-yada u horeeyaan sel baa uga faa'iidaysanayna kuwa u dambeeyaanna buy baa uga faa'iidaysanayna marka waa inaad trickiska iyo maskaxda aan isticmaalayo aad mar walba la socotaan saaxiibayaal guul badan baan idin rajaynayaa insha allah fursadahaas lacagahaasna hadday qurux badnaadaan maadaama bishii hadda ay dhammaatay 7 trade oo calaamadaysan oo entry iyo stop loss iyo wax walba leh dib bay u sii soconayaan sidii bishii hore oo kale aan idin siiyay hadduu ilaahay idmo khayr badan baan idin rajaynayaa saaxiibayaal maalin wanaagsan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu